waxaana aad fadhiga aan soo wada aruuray uu soo bilaabtay wixii ka dambeeyay 2013 waa baakoor ayaan ku socon jiray isaga taataawi jiray. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي هديات كعصب تاي channel كان صار سبسكرايب لايك ده قبل الكنا فروكم انتي قاعدنا نومهم نوشر جريس حابت هالبلوشر جري لايك تو وحي كتب جميسا إداد بدن إجاري دونين فيديو جا قفل بود دابنا يسا مركاد وقرن فيديو جا حق الشباب لايك لحكسي. ولكن حسين محمود حسين يوتيوب كان ويوتيوب كيني وودليدين سومالي إلهم بودلة ما شاء الله. ان أصحابي ان ما أنتو حاني هيا ولال وباهن لعابيو لقرب استاغو دباتيسن كليا ما هم مهمة ديناني قصلو شيكيو قف دباتيسن أن لو فيرس معناها تصال ما أنت أديك هداد قولي دبق ساران تاي أما أجيفتو أدعونيس أدعابيسو ugu dad baa jiro maanta dhibaataysan walaal dhibaataysan baan ii wadaa waa aba Soomaaliyeed Ismaaciil Maxamed waa qof dhibaataysan kuna nool magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab. Ismaaciil waa qof curyaan ama naafa ah. Aabahan Soomaaliyeed aan ka hadlayno waa qof soo shaqeynayay muddo ku jiray saxaafadda. waxaan u maleynayaa 2014 marna aragnay ma sha Allah. walaalkeen waa dhibane maxay ahaato waa dhibaataysan yahay maanta caruurtiisa uma shaqaysan karo musqushi baa dib ku ahayd. alxamdulillah waxyar talaab yar muujiyay walaalo Soomaaliyeed oo ugu horeeyo Macali Ibrahim maamulaha dugsiga indhoolayaasha ee Al-Nuur. waxaan ugu mahadcelinayo sida uu u garab istaagay gaarsiintii videoga waxay soo gaarsiiyay walaal Cali Aadan. waan iga mahadcelinaa marka dhamaantiin waxaan iga codsanayaa in walaalka asigna uu sheegi doono arintiisa inaad caawisaan wuxuu u baahan yahay. muxuu u baahan yahay walaalkeen aan daabano in yar insha Allah. ay Ismaaciil. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Ismaaciil Maxamed Cali degan degmada Xamar Jajab. marka hore waxaa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala. marka xigta waxaan u mahadcelinayaa mahad iyo asxaabta kale Ustaad Ibrahim oo hogaaminaya iyo macallimiinta kale maadaama arin baahi weyn aan u qabay isla markaan aan u dhibanaa maanta ay garteen in ay soo gaarsiiyaan gaarigaas ah. waa ugu mahadcelinayaa dhammaan insha Allah ta'ala. xaaladeyda naafinimo waxay ku soo bilaabatay waxaan ku dhashay weeyaan marba mar ka dambaysa da'deeda ay sii korayso xanuunka iyo qaabkana uu ila sii liidanayo. marka waxaana aad fadhiga aan soo wada aruuray uu soo bilaabtay wixii ka dambeeyay 2013 waa baakoor ayaan ku socon jiray isaga taataawi jiray. kabacdi adiga 2015 ayaan aad u wada fariistay oo noloshayda dhan xoogaa isbedeshay. kabacdi xanuun maalin dhan aan waxa way 10 saac aan la meer doorsoomay ilaa habeenkii 6 saac oo xaalad oo macna geeri ah lagu qiimeeyo in la soo hubiyo lagu qaaday alxamdulillah. laakiin qadarta Ilaahay ayaa wax ka harsaneed maysan dhicin. mar ka dambaysan xanuunkayga waxaan u maleysaa in jirkayga qayb uu ku sii baahayo oo hadda gacmihii inaysan tabar saas lahayn aan wax badan aan ku qabsan karin. lugihii iska badaa istaagi iyo wixii oo iyagu sii tirab oo istaagi iyo wixii dhanba aan ku awoodin oo mar ka dambaysa ay sii liidanayaan xaaladeyda. maanta xaqiiqadii waxaan taaganahay heer haddii aan sariir saaranahay aan u soo kici karin ama aan qabsan karin galaas biyo ah aanan qabsan karin ilaa caawinaad aan ka helo mooye. waxaana isaacida khayr Allah siiya zawjadeyda. waxaana u maleysaa guri kirana waan deganahay oo maanta nolosha
qofka bini aadamka wuxuu cuni lahaa waxaa kaga qiimo badan meeshuu madax la gali lahaa uu harsan lahaa iyadana dhibaato ay ka jirto oo maalmaha hadda bisha ay dhammaato kale culayska markuu isoo koro ummadda guriga cadaadis ay kusoo saaraya dadka guryaha iska leh ay ugu daran tahay xanuunadeeda xataa ay sii ziyaadaan marka arrintaasoo aan u baahanahay cid walbo muslim ah garab iga siin karta inay garab iga siiso weliba gurigan ku aruursanahay oo maanta wax aan ku mashquula haddii aan helo camal ama shaqo ah xataa waa jeclaan lahaa in walaalaha muslimiinta ah ee muxsiniinta ah meel kastoo joogaan in qof walba kaalintiisa uga geysto oo arrintaasi laga garaawo laga caabiyo maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ninkii qurbo muslim ah feedo ilaahay subxaana wa tacaala isagana wuxuu feedayaa qurbadiisa adduunya aakhira is ilaahay ayaa feedaya marka sidaa daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran wacadama marka wixii naftiina aad u hormarsataan waxaad ka helaysaan xag ilaahay ayaa laga helayaa marka sidaa daraaddeed walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay isoo garab istaagaan taageero dhinac walbana ay ugu soo garab istaagaan mar kale iyo mar kale waxaa mahad u celinayaa oo aanan iloobi karin mahad iyo ustaad ibraahim iyo asxaabta kale ee la socota macallimiinta oo aad iyagana isku soo hoolay maanta baahidan ugu weyn oo gaariga ah inay iisoo xaliyaan ii keenaan ilaahayna kolba waxaan ugu rajaynayaa in bedelkii khayrka uu siiyo qof walbana ajar iyo xasanaad ilaahay uu ka siiyo insha allahu tacaala walaalaha waxaana ka codsanayaa ugu dambeyn inay soo caabiyaan garab istaag ay ii sameeyaan si nolosha culeysyada ka jira ay ugu fudaadaan insha allahu tacaala iyagoo qofkii wax itari kara ama caawin kara ay igala soo xiriiri karaan macallimiinta ustaad ibraahim ama taleefanka lambarkiisa yahay eber 646466765 إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا 5466765 مركل أدان كعليو وشن إبر لح الشن 4666765 بإذن الله تعالى قاري وحوق سعيدة يا وما أنت ما دام قف سولي عن دقائق كرين عنها هاي إن أريكاس يحليو وما أنت خيبك أو باهيداس وأنقبه يحلي إن شاء الله تعالى. okay waad maqasheen walaalkeena alxamdulilah waxaa lasoo gaarsiiyo yiri kursiga maxaad ku qabanay baa la yiri musqul baan ku aadayaa yiri masaajidka ka mid ah goob walbo Allah ilaahay hosleeyo bodan uu ku aadi karo buu ku aadayaa maasha Allah annaga marka maxaan ku tari karnaa in lacag yar aan isku darno si shaqo abuur ugu dhigto maxay hayto guriga korontada biyaha wax walba soo ugu maareey marka ilaahay wuxuu leeyahay isku naxariista annu aan naxariisanaya marka aan isku naxariisano ilaahay subxaanahu wa ta'ala si uu nagu naxariisto aan isku naxariisan waxaad baxsata ayaa ka horeeya maalinta aakhiro aan isku gargaarno walaalkaaga muslimka ee dhibaataysan markaad aragto u gargaar ilaahay anaguna noo gargaaraya waan iga codsanayaa in walaalkaada caabisaan numberkiisna waa kana halkan ku qoran shaashada hadaytina waa ku qoran shaashada mar oo maxay ahayd videogi oo numberka sheegay numberka mid oo safkii sheegto ahaa tan kale waxaan ii raacinayaa qof walba oo walaal wax u dirayo aabaha Soomaaliyeed in oo si dhibin xabaalada taaj ugu diro telefonkiisa automatically ugu dhacaysa halka aad xabaalad kale u marsi lahayd xabaalad taaj u marsi insha Allah telefonkiisa tooska ugu dhacaysa intaad dhib lahayd aabahaas maxay hayto halka u marsi telefonkaas insha Allah waa rajay doonaa baaqayga inay ka soo jawaabi doonaan hooyooyin aabayaal hooyooyinku waa kuwa maxay hayto maasha Allah dadka garab istaaga oo maanta maasha Allah horumarka dadka gaarsiiyo marka aaba iyo hooyo walbo maqalkan videogan hadduu ku soo gaaro caabi insha Allah videogan hala like gare hala share gare si dad kale u gaaraan intaan video kale ku kulmi doonno waxaan iga tegayaa amaana Allah